السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتنا داوانا يسايا بينمو وناكسن ميل كستود كتوكتان ضعفاء عالمك شانل كينان بدي بري وركان الدين حينا عاو وحاو دورون مريكان كي برف يقبو دران وكدعي هالكاس يا حالد كندا أو بنجيدا يا قارة يوروب يا وركا أفريقيا صوماليدا هدان يديكو وريا وركا مريكان madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in waaxda cadaaladda Mareykanka ay baaritaan ku wado hantida xildhibaan Ilhaan Cumar. Sidoo kale, Mareykanka ayaa wajahaya duufaano baraf daran taasoo saameysay dad, gaadiid iyo kaabayaal dhaqaale. Sidoo kale, Mareykanka ayaa u diray bariga dhexe ergti Kerin maraakiib dagaal iyo diyaarado dagaal. Ujeedada in la xoojiyo amniga gobolka, la difaaco saaxiibada Mareykanka lana cabsi geliyo Iran iyo kooxaha taageera. Sidoo kale, dowladda Canada, Bank of Canada, bangiga dhexe Canada ayaa la filayaa inuu sii hayo heerka dulsaarka 2.25 iyadoo la qiimeynayo xaaladda dhaqaale. Sidoo kale, la dagaalanka nacaybka, dowladda Canada ayaa soo bandhigtay qorshayaal cusub oo lagula dagaalamayo antisemitism iyo noocyada kale ee nacaybka bulshada. Sidoo kale, wararka ka imanaya Yurub, xildhibaano uu ka mid yahay Cyril Braverman ayaa ka baxay xisbiga Conservative kuna biiray Reform UK. Sidoo kale, shirkii World Economic Forum ee Switzerland ayaa diiradda lagu saaray dhaqaalaha adduunka, isbahaysiga siyaasadda iyo xasiloonida caalamiga ah. Sidoo kale, midowda Yurub iyo Indiya ayaa dhamaystirka wadahadallo heshiis ganacsi oo weyn, waxaana la filayaa in si rasmi ah loo saxo bilaha soo socda. Wararka ka imaanaya Afrika, dowladda Uganda ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ciidamadeeda uga saarayaan Soomaaliya kadib ku dhawaad 19 sano oo ay ka mid ahaayeen howlgallada Amazon Teams. Tallaabadan ayaa la filayaa inay saameyn ku yeelato nabad ilaalinta iyo amniga gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo ay nabadeeda ilaalinayeen muddo 19 sano ku dhow oo ku tiirsaneyd ciidamo shisheeye. Sidoo kale, amni darro laga cabsi qabo Soomaaliya ayaa wajahaysa walaac amni kadib markii Uganda ay ku dhawaaqday ka bixitaanka ciidamadeeda. doorka Uganda, ciidamada Uganda ayaa muddo 19 sano ah door muhiim ah ka ciyaarayay sugidda amniga Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho iyo xarumaha muhiimka ah sida Villa Soomaaliya. Saameynta ka bixitaanka Uganda ayaa dhalin karta faraaqa amni haddii aan si degdeg ah loo buuxin booskaasi. Hadallo siyaasadeed, arrintan waxaa ka hadlay wakiilka madaxweynaha Uganda shakhsi saameyn military iyo mid siyaasadeed oo weyn, kana mid ah dadka go'aamada muhiimka ah sameeya gudaha Uganda oo u dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa waraaq soo saartay iyadoo ku sheegaysa in raashinkii maalintii dhaweyd la dhacay ay soo celiyeen. Dowladda ayaa waxay leedahay raashinkii la dhacay waanu soo celinay. balila daawada waraaqdii watan iyo ninkana falanqaynaya baleer daawada. warkaan cajiibka leh la yaabka leh dhageyso. dowladii baqaarka jabsatay galeedii lagu eedeynay Mareykanka oo sheegay dowladii waraaqadan ay soo saartay alla niyahow alla Mareykanka xoog badana Mareykanka waa la qanci karaa, laakiin ummadda xoolahooda la dhacayo ya u soo celinayo. Mareykankii xoog wixiis ku soo ceshaday. dowladda Soomaaliya waraaqadan ka soo baxday ee ku dhaheeso baqaarkii galeedii waa ku soo celinay. baqaarkii galeedii xataa baqaar weyn la dhisay, kii awgeed mid ka weyn loo dhisay. galeedii iyo wixiina waa lagu soo celiyay. dowladda waxay ka codsanaysaa WFP iyo dadka caawinaada in samafalkii hore u socdo, waliba arrinkaas uu la dhameeyo. ay dowladii cabashaas waraaqadaas soo saartay hadda akhrinaayeen. ala kulli xaal, Mareykanka wixiisa beebeen ma lagu cuni karo. waxaan ogaadayba ninkii xoog leh ay xaajada u toostaa.
rag badan iyo mas'uuliyiin badan ayaa fiisaha dalku galka Mareykanka loo diidi rabay oo mas'uuliyiin ah wadanka Mareykanka waa laga cancel garay sidoo kalena magacooda soo saari lahaay ala kulli xaal waxay sheegeen baqaarkii waa dhisna retain dib u celinay galeedii waa soo celinay yani keenay Mareykanka ay keenay sidoo kale wararka ka imaanaya Somaliland ayaa beenin dagaal wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa si rasmi ah u beenisay warar sheegaya dagaal ka socda ama ka qarxay gobolka Awdal iyadoo ay ku tilmaantay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn xaaladda amniga Somaliland waxay sheegtay in ammaanka guud uu xasiloon yahay isla markaana aanay jirin wax dagaal ah oo ka socda gobolada galbeedka digniin warbixin xukuumadda Somaliland ayaa u digtay warbaahinta iyo baraha bulshada fariin u dirtay wariyaasha iyo warbaahinta caalamka daawadaya tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan war waxaan idin haynaa caalamka waa naga intaa subscribe share like please bariyahan baalka hoos u dhacay kor u qaada guys bye